howlgalku wuxuu ka socday laba meelood Hiiraan iyo Galmudug. Galmudug oo isugu jirta Qurceel waji ka baxay iyo waji Dhuusamareeb ka baxay iyo waji Baxdo ka baxay. Hiiraanna wuxuu ahaa 4 waji oo kala duwan oo runtii leh yoolal ay ku kulmayaan. maanta way taariikhdu tahay 20 bisha waxaan cadeynaynaa inaan soo afjarnay argagixisadii ku dhuumaaleysanaysay Hiiraan midii galgaduudna ay hawsheedii noo socoto. argagixisada waxaa halka looga dilay 127 al-shabaab oo cadawgii ah ayaa waxaa looga dilay dagaaladii kala duwanaa iyo goobihii kala duwanaa ee ka dhacay Hiiraan. ayagana firxadkoodii waxaana loo sheegay inay sii yaacayaan ayagoo ku yaacaya si aan tala ku jirin oo tala la'aan ah qof walba meeshii ka horeysay uu orday. waxaan rabaa halkaan aan ka cadeyno wadada laamiga ah ee Beledweyne ilaa Buulobarda inay furan tahay oo maanta cadow ku dhex jira uusan jirin. waxaan kaliya xaqiijinaynaa inaan ka saarno miinooyinkii ay dhagarqabayaasha ku aaseen. waxaan rabnaa halkaan shacabka Soomaaliyeed uga sheegno argagixisadu waqtigeedii waa soo dhamaaday. kama harayno waa daba soconaynaa meeshay galeen baan uga daba galaynaa dalka waa laga xoreynayaa. mar haddii dawladdii iyo xooggii dalka Soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga iyo dadkii shacabka ahaa iyo waliba gudoomiyihii gobolka Hiiraan intaasoo isgarabsaday aan isku duubanahay xagee bay nooga baxsanayaan. waa ka awood badannahay. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan halkaan uga mahadceliyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee howlgalkan ka qayb galay kuwii ta'kuleynaya intaba waa mahadsantihiin. intii naga shahiidana Allah u naxariisto. waxaan rabaa halkaan inaan uga mahadceliyo shacabka reer Hiiraan meel uu joogo dibadda iyo gudaba dhiirigelinta ay nala daba taagan yihiin xogta ay mar walba nasiinayaan sida ay garabkaya uga garab dagaalamayaan ama ay nooga horeeyaan aad baan idinkaga mahadcelinayaa. yaan la fariisan yaanan istaagin yaan cadawgu aan ka adkaanay yuusan ugu soo kicin yuusan jaanis damba noo helin inuu nagu soo rogaal celiyo yaan laga harin. gobollada kaleeto oo dalka Soomaaliyeed oo sida gobolka Shabeellada Dhexe iyo Baay iyo Bakool iyo gobolka Gedo iyo inta gobollada nawaaxiga la leh ee gobolka Hiiraan waxaan leenahay ka kaca diyaar baan idinahay inaan idin garab istaagno. waa tijaabinay tabarta iyo awoodda al-shabaab. wallaahi haddaad ogaan lahaydeen oo dagaal la gashaan inaadan u fadhi gumaysi inaadan ogolaateen ha ogolaanina gumaysiga shabaab. nin shakhsi ah oo wiil yar ah oo qaawan oo aan awood lahayn oo calan madow wata inuu inta ku dul yimaado wax walba oo asagu uu rabo uu ka qaato adna aad u ogolaatid waa daciifnimo. waxaan halkaan uga mahadcelinayaa ciidamada saaxiibadayada ah ee ayaguna na garab siiyey oo na gacan siiyey oo dagaalka nagula jiray. dagaalkan runtii wuxuu ahaa dagaal si aad loo qorsheeyey oo ciidamada saaxiibadayada ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada aan ugu yeernay xoreyntu intaba ayagoo isgarabsaday aan u samaysanay qorshe midaysan iyo target midaysan. ilaahayna waa nuu guuleeyay. ilaahay baan mar labaad iyo mar saddexaad u xamdinaynaa. waxaan rajaynaynaa guushayada inaan sii wadano ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed hawsha ku jira. waxaan leenahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato. adinkuna noolaada guusha ha ka harinina.